soo dhawaada saaxiibayaal mar kale maanta waxaa iigu wada taxanaad u xiiso badan oo la yiro The Wages General oona soo bax sanadii hore usoo dhaafay 2021 waxaan rajeynaa keli doonta taxnaheeni inta muuqaalkiina gudaha ogan sidii caadigeed waxaan kaa codsinay muuqaalka lana garajina kan subscribe dooro subscribe ku in aad iyo aad baa u maasan tahay bilowga taxnaa waxay ku bilaabanaysaa lamaanada banaanka hoteelka la yiraahdo The Wages General waxaana ku qornaa loo hoteelka inuu kaliya furmo markay qoraxda dhacyaroortii hore waa bariga amaaniga meeshu iskaga tagay maadaama hoteelku xiran yahay marka ay tagay dhammaan iftiinka hoteelka ayaa shidmay waxaana si sixir looga qoro looxa halkan sidoo kale waxaan ku rumayn karaa dhammaan rabitaankaaga hadda waxaana nin gudaha ku jiro sheegay cunto kariya dhibkiisii isla markaana cunto ayaa looga diyaarinayaa halkaa waxaa ku caddaad in mulkiilaha hoteelka waa cunto kariyahaasi ayna dhab ahaan tahay sixirooleydu waxay cuntada si toosa gacmaheedu ku diyaarsaa dadka markay yimaadaan rabitaankoogana way u fulisaa balse waa in wax ka bedeshaa noloshiisii hore ninkii wuxuu yidhi aad baan u sabool lahay balse waxaa rabaa in carruurtaydii u dhabar adeego rabitaankiigii wuxuu yidhi inaan ku guulo tartanka bakhtiyo nasiibka biritoole markaas sixirooleydi waxay siisay cuntadii u diyaarisay waxayna ku tiri indhahaaga oo kuwa aad u qurux badan marka uu bilaab cunista cuntada waxay ku joojis kuna tiri markaad cunto cuntadayda rabitaankaaga wuu rumoobi doonaa laakiin waxaa jira qiimaad ku bixi doonto ninkii hadalkii muusan dhegaysan wuxuuna bilaabay cunista cuntada aad bay u macaaneed wuxuuna dhammaystir ninkiina wuxuu ku laabtay gurigiisii maalintii wuxuu daawanaa natiijada bakhtonasiibka tv-ga wuxuuna la yaabay inuu sii ku guulaystay wuxuuna farxad awga carruurtiisii u macsilaamiyey wuxuuna dhaqaaqaya suu lacag usoo qaatay isagoo gaarigiisii wataa laakiin wuxuu dareemay inuu wax arkarin wuxuuna mooday in biyaha ku shubnaan gaarigiisii run ahaantii arigiisii wuu waayey waana qiimaha ku bixiyay rabitaankiisii maamulaha sixiroolada sidoo kale saaxiibkeedii sida hoos kula socda ayaa la bax hoteelka waxayna bilaab inay meelkul u guuraan maadaama waqti badan meeshaas joogeen marka ay bixeen qariirada hoteelka ayaa isbedeshay waxaa aragnay gabadhii rajiin oo shaqaalaheedii maamulaheedii baarka wada joogaan markaasna xaaska maamula ayaa timid oo ka sheegsan jiin iyo ninkeeda waxayna bilaawday inay jiin garaacdo jiin si aan sabab lahayn ayaa loo garaacay waxayna usoo dib ugu laabatay guriga hooyadeeda iyadoo dhaawaxay madaxeedii saartay jilbaha hooyadeedii waxayna bilaabaysaa inuu hurdo subaxdeeda markay shaqada aaday maamulo shaqada uu ka yir sababta markay weydiisay wuxuuna u sheegay xaaskiisii weli ka shigsan tahay hadduusan erin guriga ayaa laga saarayaa intaa kadib waxaana loo tusiya wiil dugsigii sare dhigta oo la yiraahdo lili gabar ayaa imaanaysa oona ku dhahda adiga matikii tartankii sanadkii hore ku dhaawacmay waa may xaalkaaga hadda liya uu ka tagay wax jawaabna siinin subaxdii dam hooyada jin waxay kula talisaa inay furto hotel iyada leed halkii shaqo karaadan lahayd waxay la tagtay jin hotel la iibanayo waxaan la yiraahdaa qiimaha waa 5 milyan lacagta malaaxiga ah hoteelka alaabta saxmada iyo shaqaalaha oo dhan ayaa lagu bixinaya qiimahaasi hooyadii jin aad bay u farxday markaasi waxayna banki ka soo qaatay ama waxayna u iibisay hoteelkii subaxdii damjiin aad bay u farxday maxaa yeelay hadda iidaa lahayd hoteelka macaamiil badanna way yimaadeen kadib cunto kariisar wuxuu u yimi hooyada jin wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa fasax dhowr maalmood waxaana aada tuulada dugsiga liika wax wiilo akhlaaq xun ayaa dhibaataynaysa wiil masaakiin ah waxayna ku qasbayeen inuu cuntadoodii haraaga ahayd markii casirka bilaan wiil baa matag bilaabay markuu u dhaqaaqay mashquusha wiilkii mid kooxda ayaa joojiyey wiilkii masaakiinka halkaas buu istaagay markaasuu bilaabay inuu matago dharkiisii oo dhan wuu wasaqoobay markuu mashquusha aadli ayaa ka dabagalay wuxuuna bilaabay in dharkiisii wasaqda u dhaq isigana wuxuuna siinay dharkii tartanka orodka lii ayaa u hil wiilkaasi taasi sababteedii lii wuxuu u yir gurigiisii si waa casuumo sidaas ay saaxiib ku noqdeen labadooda hadda waxaa markana la tusa sixirooloodii ku nool meel u dhow guriga jin markii rabitaankeeda filins calaamada ayaa lugaheeda kaga samaysmay saaxiibka sixiroolada si hooskeedii ula socda ayaa yidhi haddii aad markan wax dalbato waxaa suurtagal in noloshaadii halas gasho maalintii dam hal macaamiil oo keliya yimid hoteelka jin maadaama cunto kariisare fasax uu qaatay hooyada jin ayaa cuntadii u karinaysay laakiin macaamiilku cuntada aad buu ugu nijabuuna ka tagay markii dam hooyada jin waxay ogaatay in mukiiladii hoteelka ay furatay hoteel aad weyn u qurux badan hortooda si darteed dhammaan macaamiishii waxay aadeen hoteelkii cusub markay labadaasi qof u tagaan si ay loo hadlaan waxay ku tiri maxaa sidaan u samaysay adigoo naga iibi hoteelkii alaabtii shaqaalihii oo dhan markaa cunto kariisar ayaa meesha yimid dadku waxay u imaan jireen hoteelkooda dhanka cuntadaasi wanaagsan markii aragta hooyada jin waxay gartay mulkiilii hore qiyaamayso waxayna hoteel cusub u furtay lacagtii ka iibisatay sababtaas darteed u eegin waxayna bilaabay inay ka baryeen inay xirto hoteelkeeda laakiin haweenaydii aad bay u kibar badnaan wayna reexid wayna dhicisay waxayna u yeertay waardiyaasha waxayna xoog ugu saartay markii aragta hooyadeedii la falgaadeynayo jin way xanaaqday waxayna bilaabaysaa dagaal sababta booliska ayaa la wacay dhanka kale wiilasha akhlaaqda waxay markii
dhibaatayna saaxiibka Lee waxayna garaacayeen Lee ayaa yimid wuxuuna iska aamusay saaxiibkiisii ayuu la baxay laakiin maysan joojin mar kale garaacay saaxiibkiisii markaas Lee aad buu cor wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo wuxuuna si fiican uga dagaalamo wuxuuna si xun u garaacay laakiin ayagu saddex bay ahaayeen Lee hal buu ahaa sidaas darteed way qabteen sidoo jir u bilaabay inuu garaacaan markaas booliska yimid dhamaantoodii waxay u kaxeeyeen saldhigga Jin in halkaasi bay joogtay waxayna u sheegtay booliska mulkiilada hoteelka waxayna qiyaamisay waa in dacwad laga furo Lee saaxiibkiisii wiilashii xumaa dhamaantoodii waxay fadhiyeen halkaasi sarkaalka baaritaan ayuu waday sarkaalka sare ayaa yimid wuxuuna yidhi waxaan helay wicitaan muhiim ah ninka na soo waco waa saddexaad wiilka khalaaqda xun wuxuuna ahaa maamulaha dugsiga sare wuxuuna ku yidhi waa in la sii daayaa wiilashaasi markaas sarkaalkiisi degdeg u sii daayay wiilashaasi wuxuuna bilaabay inuu Lee saaxiibkiisii u baaro Jin waxay tiri maxaa samaynaysaa miyaana garan in labadan wiil iyo dhibanayaasha waa in la sii daayaa maan kuwaa sii daysay markaas sarkaalkii uu sii daayay Lee saaxiibkiisii markii Lee bixa Jin waxay ku tiri waan ogahay inaan waxba galabsan ha ogow looma baaha inaad noqoto qof fiican qof walba wuxuu kaa faa'iidaysan doonaa intaa wanaagsan tahay maalintii sixirooladii waxay cabay sigaar sixir ah markii qiiqa sigaarka kacay dharkeedii sixir isku bedelay Jin aad bay ulas markaas ku dhijisay ogeysiis in hotel kareynayso hooyadeeda ayaa wacdo waxayna ku tiri ha waxaan aaday guriga aabahaaga ma fiicna adigna halkaasi imaaw laakiin Jin weydiiday maxaa yeelay aabaheedii ma jecleen markii dambe sixirooladii waxay timid hotelka Jin waxayna ku tiri waxaa maqlaan kareynayso hotelkaaga hal aransime iyo hotelkadoo siinaya aniga waxaan ku filin doonaa hal rabitaan Jin waxay bilaabaysaa inay weydiiso adiga yaa tahay waxay siisay kaarka waxay ku tiri aniga waxaana sixiroolee rumayso dadka rabitaankoodii haddaba ii sheeg wax aragta Jin way la yaabtay laakiin iyadoo kaftamaysa ayay tiri waxaan rabaa inaan ka argoosto markiiladii hoteelka markaas sixirooladii waxay samaysay sixir waxayna ku sixiixday Jin kadibna waxay ka soo saartay alaabta boorsadeedii ku jirtay waxayna bilowday karinta cunto si rabitaanka Jin u filiso waxayna dhamaysay cuntadii waxayna Jin siisay cunto markay aragtay cuntada macaan Jin way sicilin weyday isla markiiba waxay bilaabaysaa cunista aad bay u jeclaatay cuntada waxayna si xad dhaaf u bilaabaysaa cunista markii dhamaysay cuntadii Jin fara badan ee dhaqaaqaya hoteelkii milkiiladii hore waxayna u weerareen sidii ciidan markii lacag tirinaysay isla markaas xoog sixir u eega xayawaan yaaglaabteedii galay wuxuuna si aad ugu xunuujiyay ay dhimatay subaxdii Jin waxay ku toosariyay cabsi leh waxayna bilaabaysaa inay xusuusto wixii xal dhacay waxayna ku toosay sixirooladii rabitaankeedii bay u filisay laakiin ma aysan rumaysan waxay moodaysay inay riyo tahay oo keliya markaasi isku diyaarsay u baxday hoteelkeedii markii artindaheedii baa ka fogaaday booliska ayaa qaaday meydkii milkiiladii hore waayaab waxay fahmeen sixirooladii dhab ahaantii rabitaankeedii u filisay waxayna ka marogootay sababta waxay ogaatay in sababaha dhimashadaasi waxaana la tusiyaa wiil aan lahayn guri iyo shaqo la yidhaahda Bia wuxuuna u tagay raqiib wuxuuna u cid dharkiisu shaqada u qaatay laakiin maadaama shaqo lacag u haysanin waxbana ma siin ninkii dharka ka qaatay ninkii aad ugu xanaaqay wuxuuna ka yiri suuq aflagaad u jeedinaya Bia Jin waxay timid hoteelka maadaama hoteelkeedii hadda leedahay sixirooladii way joogtay Jin waxay weydiisay adiga ma yaad shabeynaydi sixirooladii waxay tiri may aniga ma diilin adiga yaad adigoo rabitaanka dalbaday Jin way carot waxayna bilaabaysaa inay qiliso aniga kubaan orina disho waxaan kili rabina ka argoosto sixirooleeda way carot waxayna wajigeedii qabato dhulku dhufatay waxayna tiri haddaba waxaan sameeyay wixii aad ratay inaan qof dismo wax kibeen baa jira argoosi carada sixirooleedii darteed waxa hoteelkii dhan gubtay markii artay Jin way ka carotay iyada oo yeesa laakiin yaab roob ayaa bilaasna markii dhammaan dadkii waqtiyay dugsigii Lee imtixaankiisii baa socday saaxiibkiisii wuxuu isticmaalay mobilkiisii si uu qiyaaneeyo arinta waxa ku hogaamiyay wiilashii xumaa wuxuuna ka wacsi u qabto markuu mobilkiisii gariiray macalinka oga khiyaanadiisii wuxuuna ka qaaday warqadda imtixaanka wuxuuna ka baadhay imtixaankiisii saaxiibkiisii aad u murgooday wuxuuna baxay markuu imtixaankii dhamaaday Lee markuu raacay saaxiibkiisii lugtiisii baa xanuunsatay wuxuuna isla markiiba tagay isbitaalka dhakhtarkii wuxuu ku yiri koobtii markii hore ka dhaawacantay dhaawac wuxuu ku yiri markii la dagaalamay wiilashii xumaa saadada dhakhtarkii wuxuu ku amray inuu qaato nasasho bil muddo ah Jin waxay hoteelkii sixirooleed aad buu sarqaasneed waxayna sixirooleedii ku tiri aniga waxba ma garan waxaan rabaa kala bar faa'iido hoteelkani sixirooleedii yaab bay ku noqotay laakiin waxba ma aysan orin waxayna ogaatay inay lawada faa'iidadii Jin aad bay ku faraxday Lee wuxuu ay isbitaalka soo booqday saaxiibkiisii sababta saaxiibkiisii wuxuu isku day inuu dilo saaxiibkiisii aad u murgoodo wuxuu yiri aniga miyuu qof waxbarasho fiican leh ciyaarna kuma fiican aniga waxba ma ihi maxaa noloshan ka fala waxaana qof fil ah xitaa geesina ma leena dilo sixirooleed filaatay si uu ku kulantay sixirooladii hore waxayna ku tir jooji wax
walba haddii aad xoogto sixirole maxamed waxaa noqon doonta qof caadi ah sixiroladii wayna caruurtay halkaasni ku dhammaanaysa qaybtiina koowaad taxnihiini haddii aad ku raaxayso daawashada waxaan kaa cusnay muuqaalka loona garjana subscribe hadduu hore subscribe ku ahayn waxaan isku dayna la soo corna qaybteeni labaad maleekal furo si ay kuu soo gaarto intaas la gaaro qaybteeni waxaan ku leeyahay macsalaamo